bismillaahir rahmaanir rahiim ramadaan kariim daawadayaal halkan waa National TV qodobada wararkeena xilligan waxa ugu waaweyn wararkii ugu dambeeyay dagaalka ra'iisul wasaare Roble iyo Farmaajo oo xoogeystay iyo Amisom oo ku soo biirtay dagaalka xayiraado lagu soo rogay xerada Xalane iyo dhaarinta xildhibaanada baarlamaanka oo halis ku jirta ayaad warkan ku daawan doontaan wasaaradda amniga xukuumadda Soomaaliya oo soo rogtay amar karana Francisco Madera sheegtay inuusan dalka soo gali karin iyo terminalka Mufcon oo la xiray qodobada kale wararkeena waxa kamid ah madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka digay qorshe halis ah oo uu damacsan yahay madaxweyne Farmaajo ciidanka xooga dalkana waxay war ka soo saareen cabsida laga qabo qorshaha 12 Abriil oo la sheegay in Farmaajo rabo in dalku uu xoog ku qabsado midowga murashaxiinta mucaaradkana waxay jawaab culus ka bixiyeen go'aankii midowga Afrika ee Francisco Madera wararkaasi oo dhan ayaan faahfaahin doonaa waa 10 Abriil waana maalin axad ah u diyaar garoowa faahfaahinta wararkaasi waa hagaag mar kale Ramadaan Kariim aynu ku bilowno warkeena dagaal siyaasadeedka u dhaxeeya ra'iisul wasaare Roble iyo madaxweyne Farmaajo ayaa gaaray meel sare iyadoo ay ku soo biirtay Amisom howlgalka ADMIS ayaa ku dhawaaqay in la xirayo xerada Xalane 10 ilaa 16 bishan Abriil talaabadaasi oo loo arko mid lagu carqaladeynayo dhaarinta xildhibaanada cusub ayaa qorshuhu yahay in lagu dhaariyo teendada Afisiyoni oo ku dhex taala xerada Xalane 14 bishan Abriil balse go'aankan lama filaanka ah ee ka soo baxay ADMIS ayaa shaki weyn gelinaya in dhaartu ay dhici karto qoraalka uu howlgalka Amisom u diray safaaradaha caalamka ee Soomaaliya ayaa lagu yiri ADMIS waxay howlgal amni ka fulin doontaa saldhiga 10 ilaa 16 Abriil si loo ogolaado hubin amni oo midaysan xerada waxay geli doontaa xayiraad buuxda muddada kor ku xusan qoraalka ayaa intaasi ku daray in xanibaadan ay joojin doonto dhammaan shaqooyinkii dhismaha ay ka socday xarunta la xiri doono dukaamada iyo goobaha ganacsi ee Soomaalida iyo kuwa caalamiga ah goobaha lagu dhaqo baabuurta iyo maqaayadaha dadka falanqeeya siyaasadda ayaa qoraalka xayiraadda Amisom u arka mid lagu hor istaagayo munaasabadda dhaarinta xildhibaanada baarlamaanka 11aad ee Soomaaliya ra'iisul wasaaraha Soomaaliya injineer Maxamed Xuseen Roble ayaa xoogiisa isugu geynaya sidii uu ku dhaqan gelin lahaa go'aanadiisa isla markaana dhaarinta xildhibaanada ay ku dhacdo 4 cisho kadib oo 14 Abriil ku beegan asa ahaatee madaxweynaha muddaxileedkiisu dhamaaday ee Farmaajo ayaa dejiyay istaraatiijiyad lagu dhabarjabiyo xarig walba uu xiro ra'iisul wasaare Roble maadaama ay isku maandhaafeen arrimo dhowr ah iyo xukunka dalka Farmaajo oo la aaminsan yahay in uusan rabin in dalku doorasho aado isla markaana aanan qabin kalsooni uu ku tago teendada sida muuqata ayaa marba abuuraya xiisad cusub oo dib u sii dhigi karta doorashada talaabada ADMIS ay qaaday ayaa imaanaysa ayada oo xiisad ay kala dhaxayso dawladda federaalka gaar ahaan xafiiska ra'iisul wasaaraha kadib markii dalka laga eriyay madaxa ADMIS ahna wakiilkii hore ee midowga Afrika Francisco Madera go'aankaasi oo uu ururka midowga Afrika ka hor yimid wasaaradda amniga xukuumadda Soomaaliya ayaa fartay hay'adda socdaalka iyo jinsiyadda inay kala laabato warqadda dalku jooga wakiilkii midowga Afrika Francisco Madera sidoo kale aan la siin karin warqadda dalku galka sidoo kale waxa agaasimaha hay'adda socdaalka la faray inuu ku wargeliyo in dhammaan cid ay qusayso in Madera aan dalka la keeni karin maadaama uu yahay qof aan dalka laga rabin waxa kale oo si ku meel gaar ah loo xiray dhammaan howlaha terminalka Mufcon ilaa amar dambe lama oga talaabada xigta ee uu qaadi doono ra'iisul wasaaraha Soomaaliya injineer Maxamed Xuseen Roble haddaba daawade sidee u aragtaa talaabada ay qaaday Amisom wali wararka National TV ayaa daawanaysaan si aad ula socoto warar sugan oo xaqiiqo ah subscribe saar kanaalkeena kadibna furo gambaleelka si wararka aan halkan soo dhigno aad weesho madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka hadlay walwalka laga qabo in madaxweynaha muddaxileedkiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uusan doonaynin in uu xilka ku wareejiyo si nabad ah Xasan Sheekh Maxamuud oo waraysi bixiyay ayaa sheegay in beesha caalamka mucaaradka iyo shacabka Soomaaliyeed waqti geliyeen sidii dalkan doorasho uga dhici lahayd loogana gudbi lahaa marxaladan halista ah waxa uu yiri inay yaraatay cabsida laga qabo in dalkan uu galo
dagaal qabiil iyadoo laga tusaale qaadanayo dhibaatooyinka ay u soo dulqaateen si loo gaaro dowladnimo buuxda. madaxweynihii 8aad ee Soomaaliya ayaa sheegay in dalkan uu halis badan ku jiray tan iyo markii talada dalka lagu wareejiyay madaxweyne mudxuleedkiisu dhamaaday horaantii sanadkii 2017 marka la fiiriyo sida loo baalmaray dastuurka dalka iyo dhacdooyinka foosha xumaa ee dalka ka dhacay. xasan sheekh oo hadda ah murashax madaxweyne ayaa cadeeyay in marnaba uusan farmaajo dooneynin in doorasho si xor iyo xalaal ah dimuqraadi ah lagu kala baxo laga soo bilaabo weerarkii Jawaari iyo baarlamaanka lagu qaaday wixii lagu sameeyay dowlad goboleedyada dalka lagu soo gabagabeeyay sidii xilka looga qaadi lahaa ra'iisul wasaarihii 3 iyo barka sano la soo shaqeynayay. farmaajo iyo nidaamkiisa ayuu ku eedeeyay in ay ku guuldareysteen in hal maalin xitaa fiiriyaan waxa ku qoran dastuurka dalka oo dhigaya dhammaan qodobada la isku hayo xalkooda. madaxweynihii hore ayaa sheegay in qaladaad badan ay sameysay dowladda farmaajo xilliga doorashada isaga oo qiray in doorashadu aysan lahaanaynin ceeb la'aan. hadalkan ayaa imaanaya iyadoo doorashada Soomaaliya ay marayso meel xasaasi ah, sidoo kalena xubnaha cusub ee golaha shacabka ay ka mid yihiin saraakiil ciidan iyo kuwa ka tirsan sirdoonka Soomaaliya, halka kuwa kalena loo diiday in ay shahaadada qaataan sabab la xiriira cabasho laga keenay kuraastooda. shahaadasiinta xildhibaanada ayaa si dardar leh uga socota magaalada Muqdisho iyadoo ay jirto cabsi laga qabo in uu sii jiro khilaafka doorashada waqtigeeda dib uga dhacday. Hirshabeelle iyo Jubbaland ayaa dhankooda gaabis ka muuqda, waxaana weli aan xal muuqda laga gaarin khilaafka hareeyay Garbaharey oo ah degmooyinka labaad ee ay ka dhacayso doorashada maamuladaasi. waa hagaag oli baahinta wararkeena ayaan ku guuda jirnaa. markana taliye ku-xigeenka ciidanka xoogga dalka ee Soomaaliya Generaal Cabbaas Amiin Cali oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inay ku jiraan diyaar garowgii ugu dambeeyay ee u dabaaldega sanad guurada 62 ee militariga Soomaaliya. 12 bishan Abriil ayuu 62 sano jirsanayaa ciidanka xoogga dalka oo la aasaasay bishii Abriil ee sanadkii 1960 balse muddooyinkii dambe waxaa jirtay hadalhaynta afgembi la sheegay inuu qorsheenayo farmaajo. taliye Cabbaas ayaa sheegay in munaasabadan ay qusayso sanad guuradaasi oo kaliya, isla markaana ka talis ahaan ay balan qaadayaan in qorshe kale aan lagu hoos qarin munaasabadooda. waxaan cadeynayaa oo aan ummadda Soomaaliyeed u sheegaynaa in ciidanka xoogga dalka uu u dabaaldegi rabo maalintiisa oo ah 12 Abriil ayuu yiri. taliyaha ayaa sheegay inay soo gaareen wararka laga faafiyay ee tilmaamaya in militarigu uu maalintaasi ku dhaqaaqi doono qorshe xukun militari ah, balse wuxuu fidinta wararkaasi ku eedeeyay dad siyaasadeed leh. taliye ku-xigeenka ciidanka xoogga Generaal Cabbaas ayaa sidoo kale ka warbixiyay diyaar garowga xuska 12 Abriil isagoo qof kasta oo xafladaasi ku casuumeen ka codsaday in uu uga soo qayb galo si kalsooni leh oo farxadooda uu ula qaybsado. gabagabada wararkeena ayaan soo gaarnay daawadayaal. ugu dambeyn haddaan eegno, ayadoo shalay gudoomiyaha guddiga midowga Afrika Muuse Faki Maxamed uu ku gacan seeray go'aankii uu ra'iisul wasaare Roble dalka kaga ceyriyay wakiilkii midowga Afrika ee Soomaaliya Francisco Madera ayaa waxaa arintaasi bayaan ka soo saaray golaha midowga murashaxiinta. ugu horeyn midowga murashaxiinta ayaa sheegay inay aad uga walacsan yihiin go'aanka ka soo baxay xafiiska gudoomiyaha midowga Afrika Muuse Faki Maxamed, kaas oo jawaab u ahaa go'aankii ra'iisul wasaaraha isla markaana lagu diiday ceyrinta Francisco Madera. golaha midowga musharaxiinta ayaa ku dooday in go'aanka ra'iisul wasaaraha uu ahaa mid aad looga taxadiray oo ka dhashay dib u eegis lagu sameeyay howlihii uu Soomaaliya u joogay Francisco Madera 8 sano ee la soo dhaafay. sidoo kale waxay sheegeen in si joogitaanka danjire Madera ee Soomaaliya uu qatar weyn ku yahay xal u helidda khilaafka siyaasadeed ee salka ku haya doorashooyinka, maadaama uu si toos ah ula saftay garabka madaxweyne Farmaajo oo mar kale murashax ah. bayaanka ayaa gudoomiyaha midowga Afrika lagu xasuusiyay in madaxweynihii hore Farmaajo yahay musharax u taagan doorashada socota, taasi oo sharci dara ka dhigaysa faragelinta siyaasadda arrimaha gudaha ee Francisco Madera iyo taageeradiisa qaawan ee murashaxnimada Farmaajo oo ay ku macneeyeen mid aan la aqbali karin oo qatar ku ah hufnaanta doorashada.
midowga musharaxiinta ayaa sidoo kale sheegay in sida ay aaminsan yihiin uusan hoggaanka midowga Afrika ogoleyn faragelin lagu sameeyey mid ka mid ah dalalka ururka iyagoo codsi u diray gudoomiye Muuse Faki. ugu dambeyntii golaha midowga musharaxiinta ayaa gudoomiyaha midowga Afrika ugu baaqay in Soomaaliya uu soo magacaabo wakiil daacad ah oo wanaajin kara xiriirka Soomaaliya iyo ururka kaasoo dhexdhexaad ka noqon kara siyaasadda arrimaha gudaha ee Soomaaliya. halkaasi ayaan ku soo gabagabeynayaa warkii aad ka daawanayseen National TV. waad ku mahadsantihiin daawashada iyo la socodka wararkeena ee nabadgelyo.